waxa ay doonayeen inay qaataan baasaboorka dalka si ay u noqdaan bulsho reer Talyaani ah balse waxa ay la kulmeen waxaysan filaneyn oo waxa lagu amray inay qaataan dalka jinsiyad ahaan ay ka soo jeedaan taasi oo dhabarjab ay ku noqotay magaalada Milano ee dalkan Talyaaniga waxa ku nool bulsho badan oo Soomaali ah kuwaasi oo xarunta immigration-ka ee Milano laga soo eeriyay dhalinyaro Soomaaliyeed isla markaasna lagu amray inay aadaan safaaradda Soomaaliya ee magaalada Roma si ay u soo qaataan baasaboorka Soomaaliya qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Milano ayaan wax ka weydiiyay sida ay u arkaan qaadashada baasaboorka Soomaaliya maadaama ay baahi u qabeen qaadashada baasaboorka dalka Talyaaniga iyagoo baaq u diray safiirka Soomaaliya oo fadhiya magaalada Roma ee dalka Talyaaniga ayga deeq xabiib baa leedahay ma xumo baasaboorka Soomaaliga qofna sinjiidiisa iyo baasaboorkiisa wax kale kuma doorsanayo baasaboorku waa baasaboorkayagii waa baasaboorkii ani waxaan hayay sheegayay titirda fiyaasha ku doorsan maayo waxaan jecelahay baasaboorku tayadii hore u lahaa male meel aad ku aadaysana ma laha diyaaradaha qaarkood inay tigidhka ku jiri waayeen baa dhacaysa tayadii bariga hore uu lahaa wax ku sheegay imka ma balahaato rasuulaha wabad magacayga waa xasan bile waxay ila tahay xilligan iyo xaaladda lagu sugan yahay dalka Talyaaniga qaxootiga ku sugan inay adkaa doonto in xilligan ay qaataan baasaboorka Soomaaliga sabab la xiriiro wadankan oo ay yaryihiin fursadihiisa shaqo dhalintuna ay jeceshahay markii ay dukumeenti qaataan inay ka sii aadaan wadamada dariska si ay ugu shaqeystaan hadii ay dhacdo in ay qaataan baasaboor Soomaaliya waxa adkaa doona inay safraan hadii ay safarku u fududaado waxa adkaa doonta hadana inay kontrakti deganaansho ku helaan wadamada ay la tagaan sida darteed waxaan safaaradda ka codsan lahay in baasaboorka aan loo adeegsan il dhaqaale laga sameeyo oo kaliya safaaraddu waxa hor yaalo hawlo badan ay kamid tahay dhalintan inay u sameeyso irshaadaad iyo xaq Cabdi Fataax yar waxa uu kamid yahay dhalinyarada laga soo eeriyay xarunta immigration-ka ee Milano maraan la kulmay waxaan weydiiyay waxyaabihii uu kala soo kulmay immigration-ka ee Milano waxa leeyahay dhahayeen waxa leeyahay yeeray in oo turjumaan leeyahay yeeray ninka turjumaanka marka leeyahay yeeray Arabi English maxaa ku hadashaa labadaba waa ku hadlaa iraaday oo ii imaaday markii oo ii imaaday wuxuu dhahay waa ina aada safaaradda oo Soomaaliya oo Roma ina aada waayaan u aadaa dhahay waa ina baasaboorka soo qaataa dhahay baasaboorkayga aan soo qaato muxuman ku dhahay laakiin waxa jirta inaan tagay oo safaaradda Soomaaliya aan tagay aan soo qaatay warqadan leeguna dhahay markaas ma bixin anaga baasaboor warqadana bixina kasakow hadalhaynta Milano ee dhalinyarada ku taameysay qaadashada baasaboorka Talyaaniga waxaan la kulmay gudoomiyaha jaaliyadda Soomaaliyeed ee magaalada Milano injineer Khaliif Maxamed si aan wax badan uga ogaado sababta keentay in dhalinyarada lagu amro qaadashada baasaboorka Soomaaliya daran oo soo wajahay xilliyadii u dambeeyay oo ay kamid tahay qaadashada oo nala ku qasbay inaan qaadano baasaboor Soomaali oo qofkii soo caday Soomaalinimadaada la leeyahay oo kadibna maxay ahaatay warqada dadkii loo diray warqadihii ay keeneen warqadihii hadda la aqoonsan waayay oo laga celiyay oo la leeyahay baasaboor Soomaali doonto ma jirto wax baasaboor Soomaali ah oo hadda safaaraddu bixinayso laakiin away saydabu KHS TV Milano